bogaygi ya beerka lulay kii bogaygi ya beerka lulay bila maarago wambuka baadi doonkiisanaha mana bareere wambaqa adayunaya allahu baalik oo balowa jacaylku waa wax ka dhaxeeya bini'aadanka siba rag iyo dumarka waxaanu ka bilaabmaa baahi timaada oo qof waliba qofka dhigiisa ee kale rag iyo dumarba kuu yahay uu qaado isagoo ku qanacsan in naftiisa ay wax ka maqan yihiin uu daweynayo ama uu buuxinayo baahidiisa qofka kale uu jecel yahay ee ka maqan haddaba dadba ayaa la dhibtooda qof ay jecel yihiin qalbigiisana wax badan ka beddeshaa waataynu ku dahaqaadayna barnaamijkan maanta Idris Jakarta waa weriye ka howlgala magaalada Burco waxaanu ka waraystaa dadka su'aalaha uu weydiiyo kulba daba gabadhi su'aasha uu weydiiyey waxay ahayd weli qof ma jeceshahay su'aal dadweynaha magaalada Burco aan weydiinaynay waxay ka odhanaysaa ma jirta qof bari xiriir aad wada lahayd laakiin waqtigoodii kala gaaray haa uu jiraa walaal su'aashan ku weydiina markaa waxay ka odhanaysaa fariin baad qofka halkan uga reebaysaa fariintaad u reebaysaa maxay fariintan halkan uga reebaya waxay tahay oo fariin xiiso xambaarsan run ahaantii qofkaas oon kala fogaano waqtigana uuna kala kaxeeyey wadanka dibadiisana uu jiraa runtii qofkaas waa qofaan in badan u baahnaa in badan aan jeclaa in badanna aanan ka maarmi karin run ahaantiina meel dheer igaga yaala welina aanan helin bedelkiisii runtii qofkaas waxaan leeyahay oon kuu xiisay run ahaantii haddii ay kusoo gaadho fariintaydu kaamana maarmi karo aad baan ku jeclahay la'aantaasna adduunyadu waxay igu noqotay wax yar xataa Burca laba xaafadood noqotay wax kale iska dayo run ahaantii waan ku baahanahay soo laabo waana ku jeclahay waxaan filaynaa fariintaasi inay gaari doonto aad baad mahadsan hayo walaalada kii bogaygi ya beerka lulay kii bogaygi ya beerka lulay bila maarago wambuka baadi doonkiisanaha mana bareere waxaanay kaga jawaabtay gabadhii markii su'aashii la weydiiyey waxa ay tiri haa waan jecelahay oo haa wiil ayaan jeclaa waxaanu joogaa waddan kale weli alaanana waan jecelahay waxaana rajaynayaa inay fariintaydu gaari doonto iyadoo ugana jawaabtay si dhaba si daacada fariintana u marisay taasoo ay sheegtay inay la dhibtootay waxyaabo badan ay iska beddeleen iyadoo si guud ahaan u dulmartay oo sheegtay inay xaaladdeedu wax badan iska beddeleen haddaba moo nugul yihiin dumarku qiiraa jabaanta jacaylka haddaba waxaan rajaynayaa inay fariintaasi wiilka gaari doonto sidii loogu talagalayna wax uga qaban doono